Modes of ultrasound. Noocyada ultrasound-ga iyo qeybaha loo adeegsado. 1. A mode ama amplitude mode. Waa nooca ugu fudud waxa la adeegsadaa marka qotada hoose ee xubin aad rabto inaad wax ka ogaato waxa uu soo bandhigaa sawir leeman ah sida sawirka ka muuqata. Waxa loo adeegsan karaa uurka xilliga hore ayada oo lagu ogaan karo garaaca wadnaha uurku jiraha iyo booska ibida. 2. B mode brightness mode. Waa nooca loogu isticmaalka badan yahay hospitaalada Soomaalida yaala. Waxa uu ku soo bandhigaa sawirka 2 dimensions oo ah black and white ama muuqaal laba xagal uu ka keenay ayuu soo bandhigaa. Waxa uu kala saaraa farqiga u dhaxeeya dareeraha iyo adkaha. Meesha biyuhu ku jiraan madow ayuu ka dhigaa, meesha xubin adag ama dhagax uu ku jirana cadaan ayuu ka soo saaraa ama ku soo bandhigaa ama qaab gariija ah. Waxaan lagu magacaabaa grayscale. Waxa kale oo uu leeyahay real time B mode oo badanaa loo adeegsado xubnaha uurku jirta iyo xaqiijinta uurka. Real time B scans kaas oo ku sahlaya in xubin aad dhaqdhaqaajiso isla markaana aad xog ka ogaato ama si fiican aad warbixin uga keento. 3. M mode ama motion mode sida oo kalena loo yaqaano time motion mode. Waxaa loo adeegsadaa xubnaha jirka ee dhaqaaqa sameeya sida wadnaha iyo cabirka dhaqaaqa wadnaha ee uurku jiraha. Waxaa jira farqi u dhaxeeya ultrasound-ga sida 2D, 3D, 4D iyo nooc cusub 5D. Haddii aan kala qaadno 1. 2D waxaa laga soo gaabiyey ama loo soo gaabiyey 2 dimensional muuqaal laba xagal oo ah qaabka uu sawirka u soo saaro ama uu qaado muuqaalka. Waxa uuna qaadaa sawir black and white ah. Waxaana isticmaala ultrasound-ga B mode ee aan kor uga soo hadalnay. 2. 3D waxaa loo soo gaabiyey 3 dimensional. Waa nooc ka sii muuqaal wanaagsan kii hore. Muuqaalkiisuna waa color. Waxa uuna soo saaraa sawir saddex xagal ah asaga oo hal sawir ka dhigaya ama hal muuqaal ka dhigaya. 3. 4D oo ah 4 dimensional. Waa nooc ka sii casrisan kii hore oo soo saara sawir 4 jiho oo ka soo sawiray oo aad u qurxoon. Waxaadna arki kartaa ilmaha uurka ku jira, kala qaadka afkooda iyo dhammaan xubnahooda oo idil. 4. 5D oo ah 5 dimensional. Waa noocii ultrasound ugu dambeeyay oo aan weli gaarin dunida oo idil. Waxa uu soo saari karaa muuqaalka dhabta ah ee ilmaha uurka ku jira oo aad u maleynaysid in ilmo banaanka hurda laga soo qaaday sawirka.